magacaygu waa Jawaan Cabdiqaadir Maxamed. sanad iyo bar ka hor ayaa waxaan arkay Somali STEM Society oo soo xayisiisay fursad scholarship oo ahayd Hodan Naaley Scholarship oo lagu xisayay ama la isku dayay in la soo saaro jiil buuxin kara ama buuxiya kaalinta ay bulshada kaga jirtay Hodan Naaley. waxaan ka mid ahaa marka dhalinyarada soo apply gareysay oo ugu dambeyn helay fursadaas scholarship-ka ah. ilaa iyo hal sano bar ayaan baranaynay xirfadda la yiraahdo digital creative media. lixdii ugu bilood ugu horeysay waxaan qaadanay already hal sano marka wuxuu ahaa wuxuu ka koobnaa 2 semester iyo 6 bilood oo internship ah. semesterkii koowaad waxaan qaadanay semesterka koowaad, semesterka labaad iyo semesterka saddexaad oo asna internship ahaa. mid walba wuxuu socday muddo 6 bilood ayuu socday. runtii waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay, waxyaabo badan ayaan ka baranay. anigu waxaan diyaarinay qaybta photography-ga iyo filmmaking-ka. markii hore wax yar ayaa igaga bilownaa, laakiin markii aan helay fursaddan waxay ii noqotay maal udub dhaxaad ah oo in badan wax badan ka kororsaday, wax badan ka siyaadsaday. kamana marnayn in macallimiin khubaro ah oo aan ka xusi karo Dr. Mike Compton iyo sidoo kale Christina ay ka mid ahaayeen macallimiin already si fiican inooga dhisay habka sheeko qorinta oo la yiraahdo storytelling-ka. halkan waan kaga mahadcelinayaa Mike iyo Christina. hadda waxaan xirfadii ii suurta gashay inay scholarship-kii Hodan Naaley aan ku kororsado aan kaga faa'iideysto ayaa xilligan la joogo magaalada kaga shaqeystaa. mustaqbalkan insha Allah waxaan qorsheynayaa mashruuc la yiraahdo Jarmaad oo eray Soomaali ahaan micnuhu noqonaya qofka kala hitaanka subax iyo kale. mashruuc yaraan ugu talagalayo oo noqon doono in sidii integration TV Hodan Naaley oo kale la mid ah, laakiin waxyaabo qaar dheeri ah ay raacsanaan doonaan. mashruucaas aan doonayo insha Allah in sanadaha soo socdaan bilaabo waxa waaye Jarmaad wuxuu ku shaqeyn doonaa soo gudbinta dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida iyo in dadkii hore bulshada wax ku biiriyay naftirkoodii la xuso. ayuu mashruuca xooga saari doonaa haddii lahay insha Allah. halkan marka waxaan kaga mahadcelinayaa Somali STEM Society oo fursaddan bixinaysay. Ihana Academy oo ayadana naga caawisay macallimiintii training-ka bixinayay. aadaan uga mahadcelinayaa. waxaa leeyahay Hodan Naaley Ilaahay ha u naxariisto. Dr. Saadiin waxaan kaga mahadcelinaynaa fursadda qiimaha iyo qaayaha leh ay nooga faa'iideysayaan. waa mahadsantihiin.